Door wanaagsan saaxiibada waddantii ku soo dhawaada barnaamijkeena saadaalinta shaxda ciyaaraha iyo falanqeyntooda. Maanta waxaa jira Europe League waxaa la ciyaarayaa horyaalka Europe League. Sida maanta miiska inoo saaran waxaa ujeedaan Evans waa 7 kooxood halka Odisku uu yahay 4.55 senti. Fadlan haddii tahay daawashada kugu horeysa channelka subscribe inoo saar asxaab badan noogu share gareyso asxaab badan uu gaaro. Intaas waa ku mahadsan tahay. Maanta waxaa wada ciyaaraya sida ujeedaan Lazio iyo kooxdan kale. Lazio runtii waxay ka ciyaartaa maxaan ku yiraahdaa horyaalka Serie A-ga. Caawna waxay ciyaareysaa UEFA Europa League. Marka Lazio runtii waa koox iska yara adag oo Serie A-ga inta badan way iska adag yihiin, laakiin si caadiyan bayada way iska yara adag tahay. Marka kooxdan waa koox iska yara waa iska yarta laakiin iska dhib badan tahay, laakiin guud ahaan ciyaarta waxaan u doornay Lazio inay badi karto ama bridge gali karto. Waxaa ku soo xigta Real Betis iyo kooxdan kaleeto. Real Betis sida ka warqabtaan naftirkeeda waa yara adag tahay. Europe League-na way ku xooganto inta kulamada ciyaartan way badisay. Marka guud ahaan ciyaarta waxaan u xulnay Real Betis inay kooxdan kaleeto ay ka badi karto. Marka sidaas ayaan Real Betis ugu xulnay inay guud ahaan ciyaarta badi karto. Kooxda saddexaad waa Roma iyo HJK kooxda ay ku qoran tahay. Marka Roma war la geli maayo, ayada waa koox weyn oo horyaalka Serie A ka ciyaarta. Marka ma u baahna falanqeyn aad u tiro badan. Marka guud ahaan ciyaarta Roma way badinaysaa caawadina 3 ku badin iyo 4 meelahaas. Kooxdan iyadana ugu qoran tahay Royal Union Saint iyo kooxda Malmo. Marka guud ahaan horta ciyaartan caawa waxaa badi doonta kooxdan oo home-ka ah oo Royal Union Saint ku qoran tahay, laakiin aniga ahaan waxba igu soo dhacay because macnaha ku sheegay gacanteeda waxay sii weysay inaan dhaho way badinaysaa. Marka sidaas awgeed double chance aan ugu dooray. Waxaa ku soo haray Real Sociedad iyo AC Omani ku qoran tahay. Waxaa laga yaabaa hadda inaad arkayso kooxda AC Omani ku qoran tahay 18 doolar inay saaran tahay, halka Real Sociedadna ay saaran tahay 1.20 senti. Marka horta waxaan arkaysaan 1xbet markay ku soo qorayaan ciyaar waa sida ayaga la tahay, maadaama waxay ka amba qaadayaan Real Sociedad inay koox la yaqaan ay tahay, kooxdan kalena koox iska yar ay tahay. Markaas qiimeyntooda ama assessment-iga ay sameeyeen ayaa u soo baxday qaabkaas. Laakiin kooxa intaas ka waaweyn arkaysaan oo 20 doolar saaran haddana ayaga laga badsho. Marka aniga kuma kalsooni qabo. Waxaan arkaysaan waa Europe League-na badanaa hadda ogtahay waa meesha badanaa goolasha ugu badan ayaa la iskaga dhaliya halkaani, because ma haystaan maxaan ku yiraahdaa ma haystaan daafacyo aad u xoogan ma haystaan. Marka isoo weerar aan ku soo weeraray waa horta sheekada. Marka guud ahaan ciyaarta ma dhahayo way badinaysaa dhihi maayo, laakiin 2 gool ayaa ka imaanaysa ayaan leeyahay. Marka aniga shaxdeedu waa sidaan, adiga laakiin waa bedeli kartaa, waa dhihi kartaa haddii ku qanacsan tahay Real Sociedad badinaysa waa dhihi kartaa, laakiin fikirkeyga waa sidaan. Waxaa kaloo ku soo haray daan u gudubna tan kale waa AS Monaco iyo kooxdan kaleeto. AS Monaco iyo kooxdan AS Monaco horta AS Monaco badinayso fikirkeyga taas wahay, laakiin haddana waa ka laabtay AS Monaco iyo kooxdan kale. Waxaan u doorayaa inay AS Monaco maxaan ku yiraahdaa kooxdan ka imaan karto 2 gool ayaa ka imaanaysa. Waxaan Europe League badanaa gool la'aan lagama baxo, waa nasiib 1 iyo 2 waa laga yaabaa, laakiin 90% horta Europe League haddii maqasho 5 iyo 4 iyo 3 mararka 7 la iska dhaliyaa. Marka 2 gool ayaan u dooraynaa. Waxa ugu dambeeya Braga iyo kooxda Union Berlin ku qoranta oo horyaalka Jarmalka ka ciyaarta ayadana, oo haddaba kaalinta koowaad ay kaga jirtaa horyaalka Jarmalka Union Berlin. Marka waxaan u dooraynaa guud ahaan sidoo kale. Hadda waxaa laga yaabaa inaad isdhehaysid Braga way adag tahay, Union Berlin way adag tahay, Odiskoodana waa isku mid,
laakiin ha ka fiirinin. laakiin xaqiiqda waxay tahay caawa 3 gool haddana ka imaanay 4 gool 2 gool ayaa ka imaanaysa ayaan anigu aan u dooray. adin saaxiib fikirkaaga adaa iska leh. waa dhihi kartaa Union Berlin aan iraahdo Braga oo kale ku fiicanta in la saarto double chance 1 gool ka imaana waa dhihi kartaa. bal fikirkaaga adiga waa, laakiin aniga maxay fikirkayga wuxuu yahay in halkan ay ka imaan karto 2 gool. marka guud ahaan shaxdeena halkan ayaan ku soo afmeerayna. koodka ayaa inoo dhiman. koodkana waa kaasa. marka guuleysta aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal.